abaalmarinta magaceeda waxaa la dhahaa Multicultural Business and Community Champion Award. Marka waxaa loo soo gaabiyaa MBCC. waa abaalmarin la bilaabay bixinteeda 2016. waxaa aasaasay nin madow oo British ah kadib markuu arkay abaalmarinada ugu badan in aan la siinaynin dadka laga tirada badan yahay ee waddanka UK ku nool. ujeedadu waa aasaasataasay ahayd ninkii hadda waa dhintay, gabadhiisii ayaa maamulkii kala wareegtay ayada oo dhowraysa legasigii aabbaheed. marka abaalmarinta waa abaalmarin national ah ama abaalmarin qarameed oo waddanka UK oo la aqoonsan yahay, dad badan oo horena loo siiyey. marka aamino adigu maxaad ku mutaysatay abaalmarintan? aniga waxaan ku mutaystay abaalmarinta horta waxaa laysku categoriska maaragtay laysku abaalmarinayay way badnaayeen ilaa iyo 20 ay ahaayeen. aniga marka waxaa laysoo dadkii aan la shaqaynayay ayaa maaragtay Maxamed ayaa maaragtay isoo nominate gareeyay oo isoo sharaxay. dadkaas marka waxay ahaayeen dad kala duwan haddayna oo u badan laakiin arrimaha bulshada. waxa aniga aan ku mutaysto waxay ahayd anu maana ogeyn xataa markii laysoo nominate garaynayay abaalmarintan oo loogu darayay dadka u sharaxan, laakiin siyaabo kala duwanaa la iigu daray. Maxamed, waxaan ahay qof aaminsan qofku intuu nool yahay inuu wax faa'iido la qabto. marka walaal aniga waxaa loogu abaalmariyey waxaa shaqadaas ballaaran oo kala duwan oo aan dadka u hayo. aniga marka waxyaabaha laygu soo nominate gareeyey tan ugu weyn wax badanaa loogu nominate gareeyey oo inaan communityga tababaro, inaan dadka xataa sida shaqo loo abuuro shaqo u abuurtaan inaan baro. marka aamino si gaara maxaad ka xusi kartaa waxyaabihii aad wax ka qabatay ee abaalmarintaana ka mid ahayd waxyaabaha lagugu siiyey? aniga waxaa isbeddel badan ku sameeyey fakarka dadku ay ka qabaan depressionka, anxietyga, psychosiska, caafimaadka dhimirka oo aan howl muuqata oo aqoonsi mudan aan ka qabtay gudaha waddanka UK iyo dibaddaba, maadaama aan ahay qof codkeedu meel dheer gaarayo oo Soomaaliduna ay kalsooni badan ku qabto oo trustable ah, oo laga yaabo gabar America joogto intay xanuun hadday iska dareento intaanay dhakhtarkeeda wacan inay aniga oo UK jooga isoo wacdo si ay ama hubsiimo iiga hesho. laakiin abaalmarintan waxaa xusid mudan walaal inaan afka ku dhufto ma laygu siinin Soomaalida oo keliya. shaqooyinka aan qabto dad badan oo Soomaali ahayn ayaa ku jira. marka isbeddelkaas muuqda oo bulshooyinka diversiga ah qaasatan kuwa laga tirada badan yahay madowga iyo carabta iyo muslimiinta ah aan ka qabtay ayaa walaal carab ku dhufan karaa, waana sababta aqoonsiga weyn la siiyey. aamina, si gaara marka maadaama intaas oo hawlaad soo qabatay, si gaara adiga aamin ahaan maxay kaaga dhigan tahay abaalmarintan in lagu siiyo? aniga wax weynay iiga dhigan tahay. sababtu waxay tahay abaalmarinaha walaala way kala jiraan, waad garanaysaa malaynaa. aniga ilaa iyo 7 abaalmarinood ayaa hore u soo qaatay, laakiin kuma aanay jirin mid red carpet la igu siiyey amaba rooga cas la igu siiyey. tan waxaa la igu siiyey rooga cas. tan kale oo walaalo maaragtay muxusada mudan waxa waaye waxaan ahaa gabadhii keliya ee ku jirta dadka la soo sharaxay ee haddana guulaysatay ee Afrikaanad ah, ee Soomaali ah, ee Muslim ah. taas ay marka iga dhigayso unique iga dhigayso. ugu dambeyn aamina, marka abaalmarintan lagu siiyey aad tiri waxaad ku mutaysay shaqada aan qabtay, ma kugu sii dhiirigelinaysaa ama shidaal ma ku sii shubaysaa hawlahaagii aad bulshada u haysay iyo wixii aad ummadda ka caawinaysay? aad iyo aad. maxaa yeelay adiga oo shaqo qabanaya iyadoon cidna kugu abaalmarinaynin wax ka badan 15 sano 17 sano adoo shaqadaas hayay. anoo BBC-da joogaan bilaabay shaqooyinka qaarkood, ma fahamtay? marka adoo intaas hayay cid ku abaalmarinayso jirin, of course waa sii qabanaya waana sii badinaya. marka howlahaas muuqda on qabtay haddiiba maanta red carpet la igu abaalmariyey waan ka sii badinaya waana sii wadaya. haddii lay abaalmariyo mar kale iyo haddaan lay abaalmarina waa sii soconaya wallahi.